بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله maanta waxaan ka hadli doonaa بإذن الله الكريم sixirka la dhiga makaanka mise ilmagaleenka. Muxuu qofku calaamoonka isku arkay waa maxay? Calaamada ugu horeysa waxa waaye qofku waxa gabadha qalqal waxa ka galaayo caadadeeda ayaa qalqal ka galayso. Waxa arkaysaa way iska soo daahaysaa hadday timaadana xanuun zaa'id ah ayay dareemaysaa. Tan labaad gabadha waxay kale isku arkaysaa waxa la yiraahdo discharge waxa waaye yacni daa'iman wax baa ka socdo wax sida yellow ah oo jaalle ah is wax cadaan ah oo waligeed istaagaynin oo mar wali maaragtay dharka ka wasaqaynayo. Labadaas ayaa la isku arkaa. Tan saddexaad waxay isku arkaysaa oo kale ilmo uur ma qaadayso intaasoo sano ayay ninka isqabaan. waxaad arkaysaa maaragtay waxaa dhib ku noqonaya inay uur qaado caruur Ilaahay subxaanahu wa ta'aala siiyo. tan afaraad waxay kaloo isku arkaysaa xanuun inay dareento markuu ninkeeda maaragtay jamaac la sameeyna xanuun aad iyo aad ay u dareemaysaa xataa waxaa dhici karta inay jamaaca oo dhan ay ka xararto ay dhibsato. waxaa kaloo lagu arkayaa qoftaas Ilaahayna hadduu ilma siiyo ilaa man raxima rabbi qaarkood waxay dhalayaan ilmo oo autistic maadaama ilmahaas maaragtay ilma galeen oo sixir ku jiro ay ka soo baxeen. tan lixaad waxaad ku arkaysaa qofka maaragtay waxay noqonaysaa qof dhaqanka xumaanayo dhaqanka ayaa ku xumaanayo oo waxay arkaysaa qof waxay noqonaysaa oo caado u joogto sanadkii oo dhan qof caado u joogto sanadkii oo dhan ayay noqonaysaa. xanaaqayda badanayo qof waa taqaanin idinka maaragtay xataa culimada maaragtay islaamku wuxuu leeyahay qofka markuu maaragtay ay caado u joogto talaaqa laa yajuus talaaqaas ma jiro. marka qoftu waxay noqonaysaa qof oo maanta oo dhan dhaqanka ka xumaaday oo maaragtay sida qof caado u joogto camal ay noqonaysaa. yacni all the year sanadkoo dhan waxay dareemaysaa cariiri dhaqan xumo xanaaq oo inta ka saaran. gabar daraad aniga quraan aan saarayay waxay igu tiri waxaan aaday dhakhtar kaamira ayaa laga geliyay tiri ilma galeenka waxaa la arkay sida maaragtay sida coos oo kale ilma galeenkayga darbigiisa maaragtay jidaarka waxaa la arkay wax sida coos oo kale ku jiro. markaan quraan saarnayna meeshaas ayaa ilma galeenka ay aad iyo aad xanuun aga dareentay xataa waxay dhihi jirtay waxaan dareemi jiray sida qof oo mindi dhex gelinayo oo kale cawrada iga gelinayo. fadhiga waa i dhibi jiray istaaga aan shaqadeeda ku dhamaysan jiray wax yar haddaan fadhiyo meeshaas ayaan xanuun ka dareemayay dhihi jirtay. marka alxamdulillah Ilaahay caafimaad ugu daray. marka calaamadooyinka hadda isku aragto waxaad ogaataa inuu maaragtay oo dhakhtar maaragtay waxba kuu qaban waayo oo daawo kasta isticmaashay waxba kuu qaban waysay waxaad ogaataa in meeshaas lagaaga jiro. gabar xataa waxaan arkay hadda kor intaasoo sano ilma la'aan 10 sano intaasoo operation ayay martay intaasoo camaliye ayaa lagu sameeyay ilaa iyo maaragtay hadda waxa Ilaahay ilma siiyay male. ilma galeenkana markaan aragnay aan quraan saarnay qofta meeshaas ayaa aad iyo aad eega xanuunsanaysa markuu quraan ku socday. marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala caafimaad adan siiyo. subxaanaka allah bixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta nastaghfiruka wa natuubu ilayk. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.